dowladda federaalka Soomaaliya ayaa waxay war ka soo saartay duqeymo lagu beegsaday safaaradda Qatar ee ay ku leedahay magaalada Kiev ee caasimadda dalka Ukraine. war-saxaafadeed ka soo baxay wasaaradda arrimaha dibadda xukuumadda federaalka Soomaaliya ayaa lagu sheegay in dowladda Soomaaliya ay si weyn kaga walaacsan tahay isla markaana ay ka xun tahay duqeyntaasi lagu beegsaday safaaradda Qatar ee dalka Ukraine, iyadoo dowladda federaalka Soomaaliya ay ku baaqday in la ilaaliyo shuruucda caalamiga ee lagu ilaaliyo xarumaha diblomaasiyadeed iyo kuwa hawlwadanada caalamiga. Ruushka ayaa saacadii la soo dhaafay wuxuu duqeymo ba'an ka geystay magaalada Kiev ee caasimadda dalka Ukraine, halkaas oo sheegay inuu ku baabiyay saldhigyo ay ku lahaayeen ciidamada militariga dalka Ukraine iyo sidoo kale dhismooyin waaweyn oo ku yaala magaaladaasi. dowladda Soomaaliya iyo dowladda Qatar ayaa iminka waxay leeyihiin xiriir aad u wanaagsan oo diblomaasiyadeed, waxaana labada dowladood iska kaashadaan arrimo fara badan oo ku saabsan diblomaasiyadda iyo sidoo kale dhaqaalaha.